وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفراد زيد وناهيك بها فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغاز. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. waxaynu soo bilownay baab الحجب waxayna soo gaarnay xajb nuqsaan inuu leeyahay 7 qaybood 4 intiqaalaat ah iyo 3 isdixaamaad ah 7daas aynu ka qaadanaa insha Allah taala darsigeena al intiqaalaadka waa xajb nuqsaanka qofka xoolo laga nuqsaamiyo nasiibkiisii badnaa inta laga nuqsaamiyo ku yar la siiyo ee ku yimaada intiqaalaat meel uu qofku ka guuray meel kale uu guuray in nuqsaantaasi ay ka timid kow intiqaalu min fardin ilaa fardin aqalla minhu waa inuu qofku fardi ka guuro una guuro fardi kii hore ka yar wahada yakunu fi xaqi man lahu fardaan taasna waxay ahaanaysaa oo soo xasilaysaa qofkii laba fardi leh wahum 5 waana 5 dadka laba fardi leh waa 5 الزوجان واللبدي الزوج الزوج والزوجة والأم هو يدي وبنت الابن بنت الابن والأخت من الأب وعشان تقف واللبدي زوج بنت الابن الأخت من الأب زوجي زوجة زوج وقاتها نصف يا الربع نصف أيوك جوريا ربع كيربو جوريا حجم نقصان باقري زوجة وحقاتها ربع يا ثمن ربع يك جوريسا ثمن بجوريسا وحجم النقصان هو يد وحقاتها ثلث iyo sudus waxay ka guureysaa thuluth waxayna u guureysaa waxa weeyaan sudus oo ka yar thuluth bay ka guureysaa thuluthul baaqi bay u guureysaa oo thuluthkii ka yar oo ba saddex xaalaha halka bintul ibni waxay qaadataa nisfi marna waxay qaadataa sudus markay xabad tahay bintul ibni waxay ka guuri nisfi waxay u guuri sudus oo ka yar al-ukhtu min al-ab waa lamid waxay ka guuri nisfi waxay u guuri sudus dhammaanna way soo dhiganay qof kasta oo intaa ka mid ah xaalaadka hadda aynu sheegnay xilliga uu qaadanayo iyo shuruudda uu ku qaadanayo maqsuudku waxa uu yahay fardigan weyn markuu ka guuray oo ka yar u guuray de nuqsaan baa meesha timid waa xajb nuqsaan oo kii weynaa ee badnaa baa laga xijaabo oo kii yaraa baa loo xijaabay laba intiqaalu min at-ta'sib ila al-fard inuu qofkii ta'sib ka soo guuro fardina usoo guuro وهذا يكون في حق الأب والجد فقط kaasna waa aabaha iyo jadka xaqood oo kaliyaad oo aabo iyo awoowo sudusna way qaataan oo ahlu fardi ta'siibna way ku dhaxlaan ta'siibkii bay ka soo guuriyo fardi bay u soo guuri oo tusaale ahaan maanta hadii meesha cid casabanimo cid uga mudan hadii meesha joogto waa jihadii bunuwade ilaan ab iyo jad bunu way ku jiraan cid uga mudan baa meeshii joogta oo jihatul bunuwa أب يجد وجهة الأبوة وجهة آبياشة أب يجد جهة كم مدن باكرتها وجهة البنوة ابني ابن الابن وإن نزل مركا جهة البنوة وهذا ماشي شوكتهم أب يجد حق ما لها تعصيبك مركا تعصيبك ويكسو جوريان يحوسو جوريان وحكير وفردقي سدسك اللي وحنا لقي يابين وبدن لها تعصيب هذا يحكوا قادن لهاين وحولها أنت صوها دورهم بيقادن لهاين haddiina bunuwadaasi meesha joogi lahayn xoolaha meesha yaalo dhan bay qaadan lahaayeen ama waxay qaadan lahaayeen wixii soo haray oo de farabadnaan lahaa mararka qaarkii haddiina joogi lahayn bunuwadaas laakiin bunuwo joogta ayaa uga mudnaatay wixii tacsiib ahaa iyagu waxay qaadanayaan fardigoodii sudus marka halkaas waxaa ka yimid waxoogaa nuqsaana 3 intiqaalu min alfardi ila tacsiib fardi in laga guuro oo loo guuro tacsiib waa tan labaad cagsigeedii وهذا في حق ذوات النصف فإن لكل واحدة منهن عند الانفراد النصف انتقال فرد لغا غورو تعصيب لو غورا
وحق دمر كيهب لها ذوات النصف قالوا يقانو هو اللبب وبنته يا بنت الابن الأخت الشقيقة يا الأخت من الأب متكستوها كمدا فإن لكل واحدة منهن متكستوها بلها كمدا وحأسقنا هذا عند الانفراد مركي كل جيتها هي ماشي أينا شوقين إن الله بعض ولا سمن ومشاركة معصب كيدين ونشوقين النصف وحأسقنا هذا النصف وإذا كان معها معصب كيد هدول شوق أفرتها بلوط بنت الابن الأخت الشقيقة الأخت من الأب معصب كيد هدول شوق اقتسم المال مال كي بيقيب سميا أو الباقي أبو وحي صهر بيقيب سنيا للذكر مثل حظ الأنثيين يضول كود وسقنا هذا لبا دديك نصيب كود مكان نصف قادن له حولها كلابر بيقادن له كلابر كي بيك جوريسا waxay u guuraysaa inay tacsiib wax ku dhaxasho oo mucasibkeeda ay la dhaxasho dabarka hadii xoolaha ay iyagoo kaliya ta dhaxlayeen saddex markii loo qaybiyo ayay qaybiyadu yeelan labana mucasibkeeda ay yeelanaya hadii ay wax soo hareen marka hore cid kale meesha joogteen waxa soo haray nisfi ka qaadan meesha wala tacsiibinay inta saddex loo qaybiyo ayaa qayb laga siinayaa labana waxa qaadanay mucasibkeeda marka fardi bay ka guurtay tacsiib bay u guurtay oo ka yar naam intiqaalu min tacsiib ila tacsiib wa inuu qofku ka guuro tacsiib una guuro tacsiib buu ka guuray tacsiib buu guuray tacsiibku ka guura u badnaan lahaa tacsiibku u guura yar وهذا يكون في حق العصبة مع الغير أركز وحو صوح سريا وحويان عدي عصبة مع الغير هيد حقه فإن للأخت مثلا مع البنت الباقي أختضوا هذه بنت لا شوكتو دوحي قادنا باقية وهو النصف باقي سنوح ونقني نصف وانا يجي صور دقني حلقات كان يقدم بيقار كمذا العصبة مع الغير واقتضى الشقيق هذا أما اقتضى لأب حبدي وحي كبدن بها هذاني هذه لا شوغان بنتو أما بنت الابن عصبات بين نقضان مركا حبد أختها هذه لا شوكتو حبد بنتا مركا نصف كذا قادة باقي اقتضى قادن لحي باقي سنوات هو النصف ولو كان معها أخوها مكا عصبة مع الغير بين نقول الله عصبة مع الغير بين نقول الله ولو كان معها أخوها اقتضى ولكن أخ هدول تشوغو لتحولت إلى معصبة بالغير وحيسكو بدأ سامد عصبة بالغير وحكو دحليسا ومعصبة بالغير أما معصبة بالغير من غير كيد لغو تعصيبي من قنصة وعصبة دي مع الغير انت كجورتو بي عصبة دي بالغير وجوريسا فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين يدي معصب كذا باقي وصهرين نحو كلا قادنيان كلب إنه قاطو لبد ديك نصيب كود وأما أينت قاطو إنه كهف كي قاطو فتعصيب كذي هو تعصيب مع الغير وقبضنا تعصيب إلى الغير أفرت أسواء انتقالاته وقف حالة كجورية ونجورية حالة كهوسيسة أو كير هو حجبي وأنا حجب النقصان الازدحامات والنقصان تكون مادة إسعريري ازدحام في الفرض وإن فرض لسكوع عريريو وهذا يكون في حق 7 من الورثة كاسنوح صواحة سليا تضبا كم إذا دحلياش حقه هم وحوي الجدة والزوجة وجدد يزوجده ولا عدد من البنات بنات رأة وبنات الابن يا بنات الابن جين والأخوات من الأبوين أخوات كي اللي بدأ أبك يمد شقيقات كأها والأخوات من الأب أخوات كي حق أبوه ولا عدد من أولاد الأم يو أولاد الأم أو ترأة لا بيوحي كسي بدن هو يدو عروته أي شيء يعني هو إذا عروته أي شيء وحلوش إذا ولا له هذا حاجة ولا له حاجة حقه هو مقصود الشيخ كون ذنبه وقد جاي طبعا وذا الشمع والله بيوحي كسي بدنه waxaa fiicnayd aljadda iyo zawj halka uu yirina inuu ka dhigo iyagana jamac leeyahay xabad jadda waa kaligeedo suudkeeda qaadan xabad zawjana waa kaligeedo ama rubuceeda qaadan ama waxay qaadan thumunkeeda ciidi meeshii ma jiro laakiin sida saxda wuxuu ahaa aljaddat iyo azawjat inuu sheekhu yiraahdo ama alcadad min aljaddat iyo alcadad min azawjat sidoo xaq dambe sida uu yiri saasa markaa saxa marka dadka halka inoogu xusan de laba qof markay noqdaan wixii ka sii badan de fardigii bay wadaagayaan imika laba jad haday meeshii joogan fardigii suduskay wadaagayaan
xabad jidda xaqii kaligeed ka qaadan lahayd sudus jidda labaad hadii loo helo de sudusku un bay leeyihiin oo loo kala qaybinaya mid walba nuqsaan baa galaysa oo mid kasta sudus gaar ah qaadan maysa xabad sudus ay wada leeyihiin xaqii awal ka qaadan lahayd kaligeed maanta waa la wadaagaya wixii ka nuqsaamayaan zawjaadkiina waa kuwa lamid rubuci bay wadaagayaan ama thumunkii bay wadaagayaan xaqii zawjadu kaligeed ka qaadan lahayd ama rubuc ama thumun ayaa maanta la wadaagaya rubuci ama thumunkii oo inta ku soo hagaagaysa nuqsaan baa galaysa kuwa kale sheekhu ku sheego kuwa lamid banaadkii banaatul ibnidi akhawaat ashaqiiqaat alakhawat min alab awlaad alum kullu haula waxa weeye isdixaan baa meeshii yaalo maadaama laba qof iyo wixii ka sabadan ay noqdeen fardigii bay marka isku ciriiriyaan waxa weeyaan ay kala qaybsanayaan haduu qofku kaligii uu fardiga la gaar noqon lahaa ayaa uga badan lahayd laba isdixaamu fi tacsiibka in la isku ciriiriyo وهذا يكون في حق كل عاصب كاسنا وحو هانيا قف كستو عاصبه حقي عصب بالنفس هذا بالغير هذا مع الغير هذا عصبات كان soo dhigana بالغير iyo مع الغير iyo بالنفس oo mid kasta dadku markay bataan casabada noqonaya isla markaana ay siman yihiin oo بالنفسiga tusaalaha isku jiha ay yihiin isku darajo ay yihiin hadii quwo loo eegi lahaa isku quwo ay yihiin noor qofna ay noqdaan way kala qaybsanayaan 5 ibni way kala qaybsan 5 akh way kala qaybsan nacam 5 am way kala qaybsan oo wada siman markay yihiin ilaa haday kala sareeyaan oo isxijaabayaan marka badnaanshahoodii wuxuu keenay in nin walba wixii ka soo hagaagay uu yaraado haduu kaligii heli lahaa uga badnaan lahayd عصبة بالغير يوحى ويان مع الغير نوكو لمد عصبة بالغير مع الغير نوكو لمد أو بنتو يا ابني هذه ماشي يشوجان بس عصبين يعني وحي سوا هريبي لبضو ذوك لغير سنة هاي هذه لبا ابن نقدان يا لبا بنت صالحة أما دور ابني يا دور بنتو دور ابني يا بنتو دور بنتو يا ابني وعصبة بالغيرون وحاسودني لكن مركب بتان نقصان بماشي منصة عصبة مع الغير نوع كولا مد دور أختها هديهين أو بنت لا تشوجا أما بنات لا تشوجا هديهين أخوات كاسم بدامي بتن توحي نقصان بسوق قاريس صدح ازدحام في العول وعريري عولك كإيمانية عولك نوين قاردنا إن شاء الله تعالى وهذا يكون في حق أصحاب الفروض كاسوع وصاح يا أصحاب الفروض كحقون إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة هذا يكوع ريان يكوع تمان هالفريضة لأنه ليس بعضهم أحق بالإرث من بعض قاركود معها قاركوا كلا دحلك كمدن فيلحق النقص نقص أيا هليليا جميعهم دمانتون حتى يتمكن من قسمتها إلا قيبين تيدا لما كان صدو أي صورة قل نقطه صالحان وحميش يمد وشوغا زوج عاول كوا صعد إن شاء الله لكن حبيت صالود يعني صو حرمر إنه زوج يا شقيقة يا يا ميدكي وكتجي زوج ما أنت روح ولا هاي نصفي فرع وارثة ما تشوف شقيقة النوع هذا هاي نصفي وشروط دي والله جاي هلا فرع وارثة ما تشوفه أصل ذكرى ما تشوفه معصب كذي ما تشوفه مشاركنا ما تشوفه ما أنت روح هذا هاي وحويا ثلث لأن أصل فرع وارثة ما تشوفه جمع إخواننا ما تشوفه عليه حبة أختها بتشوفته بس هذول غراوين معه وحيل هذا ثلث حوله نصفي وعاك لقاتي زوجكي شقيقة دي بر يبر ويبر ما هذين محي قادنا صار حومي صواحد محي كل عادي وحي كل عادي ماشي ما يالو كل بكو اللي قصوا بلعبة حوله قادنا كل جو ضمبيهيو يا وحيسي وايا أما وحوايا ما دام ما أنت قف كان وحو كل دعاء وكبتها يوحو حوله سكوا وايو أي قيب بدن وكوا ماشي أنا أولين oo ay macnuhu tahay wixii yaalayba deeqi waaya dadkan wayna wada sameeyeen guud ahaan xagga dhaxalka iyo qof kasta oo dhaxalkiisa qaadashadu qaadan lahaa fardigiisii waxaan leenahay hal isku celceliyo qof walba wixiisi waxa ka go'an laga zawjku nisfigiisa oo buuxa qaadan way waxba ka go'ay shaqiiqadu nisfigeedii waxba ka go'ay umna thuluthkeedii waxba ka go'ay waxa u tusaale faanka hadin soo dhaweyna cawlku ay man doonaayeen adigoo laba caruura leh oo u soo qaaday waxa weeyaan laba xabo nacnaca
oo gurigii yimid deeta ilmo si kadisa aadan u filayn aad gurigii ugu soo gasho jaadka ka soo wareegay saddex bay noqdeen laba midnood ugu tala gashay inaad soo qaado labadii carruur aad siiso dee ceeb bay kugu noqon intaad labada dhashay aad siiso inaad kii kale ka tagto waxaa qasab noqonaya inaad kana wax ka jabiso kana wax ka jabiso labadii jabkan iskugu darto kuwana mid kasta xabad wax ka jabi inaad siiso oo isku celceliso qof walba nuqsaan baa gasho wax dhammaystiran muu qaadan waa saasoo kale cawlku wayn gaadha insha allahu tacaala waa tusaale marka waa cawl isdixaam cawlkii ku imid weeyaan kaasi waa xajbigii nuqsaan waa afar intiqaalaada iyo saddex isdixaamaada baa nuqsaantu ay ku timaadaa waa xajbu waxa weeyaan bishaksi qeybtiisa koobaad waa xajbu nuqsaana qeybta labaadna waa xajbu lxirmaan qeybta labaadna waa xajbu alxirmaan waa qofka xoolaha in laga xirmaaniyaba waxba uu qaadan waayaba qeybtaa hore waxbuu qaadanayaybe huwa an yusqa huwa waxa weeyaan an yusqida shaksa gayruhu qofka keyrkii inuu rido oo min alirthi dhaxalkii uu ka riday bilkulliya gebi ahaanba qof kale oo ka mudan baa ridaya xoolaha gebi ahaanba ka tuuray waxba usoo hadhimayn waxba qaadan maayaba ka xajbi lcasabati bacdihim bacdaa sida casabada qaarkood ba qaar u xijaabaan oo waxa weeyaan bunuwadu dee waxay xijaabaysaa ukhuwadii acmaamtii walaagii nacam jihaadkii shanteen soo dhignay tusaale ahaan ubuwadu waxay xijaabaysaa jihaadka ka dambeeya ukhuwadu waxay xijaabaysaa jihaadka ka dambeeya acmaam waxay xijaabaysaa jihaadka ka dambeeya allahuma ilaa jihada ubuwada unbaa haddii tacsiib laga xijaabo fardigay helayaan waxbay heleenoo waa xaggii aan soo dhiganay dee nuqsaantay xirmaan ma ah marka qof kastoo qof ka mudan meesha uu joogo waxa weeyaan oo isaga weliba kusoo dhawaaday tusaale ahaan ama uga mudan dee xirmaankaasaa gelaya wayumkinu ta'tiyahu calaa jamiici اlwaratha wayumkin waxaa suuragala ta'tiyahu calaa jamiici اlwaratha xajbu xirmaanku inuu ku yimaado uu galo warathada oo dhan waa suuragal maa cadaa sittatan min alwarathati marka laga reebo 6 dhaxlayaasha ka mid ah xajbu xirmaanku waxa uu galaa qof kasta oo dhaxal qaata waa la xirmaaniyaa 6 marka laga yimaado oo iyaga 6 lama xirmaanin karo waa kuwii xuun qaata xuun bay qaadan laakiin inay iska tagaan suuragal ma ah hum waxa weeye 6daasi alabawaan labada aabo alab walum wazawjaan labada zawj azawj wazawja walwaladaan iyo labada walad alibnu walbintu 6daasi maba dhacaan inay dhacaan suuragal maahee xuun bay qaadan yani shaksi kuma dhacaan allahuma ilaa xajbiga in soo dhaafnay alxajbu bilwasfi haway ku dhacaan waa xajbu bilwasfi dhaxlayaasho dhan buu gelayaa laakiin alxajbu bishaksi xirmaankiisa meesha labada qaybood xirmaan baa ka mide in la xirmaaniyo qof lagu xirmaaniyo 6dan qof oo xoolaha loo wada diidaa suuragal ma aha xuun bay qaadan labadaaba hadday tacsiibka waayaan fardigooday qaadan labada zawjna awalba fardi bay qaadan jireen labadan waladna waxa weeyaan qasab laazim waxbay qaadanayaan marka 6daa marka laga yimaado inta kale waa laga helaa xajbu alxirmaan 6da laakiin wuxuun baa usoo haraya aqsaamu lwarathati binisbati ilayhi dhaxlayaasha marka loo eego xajbu xirmaanka qaybahay u kala baxayaan calaa 4 aqsaamin 4 qaybood bay u kala bixi kow waarithun waa dhaxle laa yuxjabu walaa yaxjibu dhaxlayaasha marka loo eego xajbu xirmaanka 4 qaybood weeyaano waa waarith laa yuxjabu walaa yaxjibu lamana xijaabo cidna ma xijaabo wahumaa azawjaan waa labada zawj oo shaksi ay xijaabaana ma jiro shaksi iyaga xijaabaana ma jiro waarithun yaxjibu gayrahu walaa yuxjabu waarith cid kale xijaaba laakiin isaga aan la xijaabin wahuma alabawaan walwaladaan waa labada aabo iyo labada ilmo alab walum iyo albint walibn iyagu cid bay xijaabaan laakiin iyaga lama xijaabo waarithun yaxjibuhu gayruhu waa dhaxle cid kale ay xijaabayso walaa yaxjib isagu cidna aan xijaabin isagaa la xijaabaa laakiin isagu cid ma xijaabo wahum alikhwatu lium waa walaalaha xagga hooyo iyaga waa la xijaabaa laakiin iyagu cid ma xijaabaan waarithun yuxjabu wayaxjibu gayrahu waarith isagana la xijaabayo isaguna waa xijaabaya wahum baqiyatu lwaratha waa dhaxlayaasha kale baaqiga ah ee intaa kasoo haray waa taqsiim laynoo sheegay dabcan waxaana si fiican ugu fahmaynaa dacashraanta aan soo dhiganay aynu ku fahmaynaa oo 4taa qaybood bay dadku u kala baxayaan xajbu xirmaanka
shakhsi xijaabaya marka la eego waa afartaa qaybood mid isagoo waxna aan xijaabayn aan la xijaabayn mid isagoo xijaabaya laakiin isaga aan la xijaabin mid isaga la xijaaba isagoo waxba aan xijaabin iyo mid isagu waa xijaaba lana xijaabo waa sidii dhexlayaashu u badan yihiin saddexdaa qaybood oo hore marka laga soo reebay وهذا جدول يبين حجب الحرمان كالنوى جدول عضينيا حجب حرمانك حجب حرمانك هذا قواعدي سلي نسيي جدول عضينيا شيء حق إنه وشاقي ومحجوبك يحاجبك بسكو قرب قري محجوبك وقفك لحجابه حجب حرمان حاجبك هو كي حجابي حجب حرمانك ما كان جدول كم حكي قادنا إن شاء الله تعالى حلقة الحيطة بإذن الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله توفيق